horta dowladda federaalka madaxda meesha joogta wax ka nabadgelaya ma jiraan saddexdii sano la soo bartay meel laba qof oo heshiisa waxay jecel yihiin inay kala qaadaan meel labana waxay jecel yihiin balaayo inay ku dhex turaan qabiil iyo jinni iyo balaayo iyo taleefoonno isdaba ordaaya iyo lacag aan xisaab lahayn oo iska soo dirayo marka dee way iska muuqataa tani waa midda dee beesha caalamku maalinka soo imaanaysay waa midda annagu xildhibaanadii federaalka keenta meeshaan waa midda ayagii oo ka maqan meeshii ee hadba warqad ka soo saarayaan meel cidlaa oo aan la garanayn qofka xitaa xogwaalka oo dhex taagan hadduu rabo waa dalkoodii looma diidana intay yimaadaan halkaan xabka ka gudbiyaan laakiin wasiirka arrimaha dibadda suu dhaqmayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu qolalka madow waxyaalaha ay ku hayaan runtii wax shay fudud ummadeenna ku away ceebka waxaan u qalmin dowladnimo soomaaliya weeye wax dib u heshiisiintii dowladdii la agaagumaya oo la isku keenaya naga burburtay wixii meeshay maraysay oo la rabay in laga sii wado wax runtii dib u celinaya weeye marka arrintaas waxaan leenahay laga waantoomo waana wayna soo bixi doontaa mowqifkooda ayaamaha soo socda laakiin waxaan caddaynaynaa dowladda federaalka ee aad ugu cuslayd ugu weyneed oo asaasku ahayd inaan ka tirsannahay hay-addaana dowladda federaalka shakhsiyaadka madaxweynaha